laga yaabee in muddo dheer aad maqashay ama laguu sheegay burburkii iyo hoos u dhicii dalkii hooyo ee Soomaaliya. Laakiin daawade, miyaad og tahay in maanta Soomaaliya ay ka horreyso waddamo hormaray sida Jarmalka, Turkiga iyo Talyaaniga? Waad yaabtay soo maaha? Ambasa ayaan u yaabay. Internetka oo ah waxa ugu muhiimsan dunida maanta waxa uu sabab u yahay inuu muuqaalkani ku soo gaaro. Internetkuna waxa uu noqday tiirka horumarka tiknoolajiyad ee dal walba. Waxaana mucjiso ah in Soomaaliya oo mar loo nisbayn jiray dunida saddexaad ay maanta leedahay internet ka dhaqso badan kana wanaagsan midka dalal badan oo horumaray oo ay ku jiraan Jarmalka, Talyaaniga, Turkiga iyo kuwa kale. Marka aan eegno tirakoobyada speed test ama Ookla iyo daraasadaha kale, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay in broadbandkeedu gaadho in ka badan 120 MB sakankii, halka internetka mobilkuna uu gaadho celcelis ahaan 35 MB sakankii. Haddaba balaan isbarbar dhigno dariskeenna Itoobiya oo dadkeedu ka badan yihiin 120 milyan. Internetka celcelis ahaan waa mid gaabis ah oo inta badan ka hooseeya 20 MB sakankii. Kenya oo loo yaqaan hormuudka ganacsiga Geeska Afrika waxay haysataa ama leedahay celcelis qiyaastii 30 MB sakankii, taasoo ka dhigan in Soomaaliya si cad uga horreyso dariskeeda. Gudaha Afrika, dalal sida Koonfur Afrika iyo Morocco ayaa horey loogu yaqiinay inay hormuud ka yihiin xawaaraha internetka. Laakiin maanta Soomaaliya waxay gashay safka dalalka internetkoodu ugu dhaqsiyaha badan yahay qaaradda Afrika. Caalamka marka la eego, inkasta oo aysan weli gaarin dalalka ugu horreeya sida Singapore oo leh ku dhowaad 300 MB sakankii, haddana Soomaaliya waxay ka hormartay 10 waddan oo dhaqaalahoodu aad u sarreeya, taasoo la yaab ku noqotay khuburada tiknoolajiyadda. Haddii aan dhinaca dhalinyarada u soo laabanno, internetkan degdegiihi waxa uu yahay fursad iyo furaha fursado aan xad lahayn. Sanadihii ugu dambeeyey, Soomaaliya waxay heshay fursad weyn oo dhanka tiknoolajiyadda ah markii adeegga fiber optiga badda hoostiisa lagu xidhay xeebaha dalka Soomaaliya, taasoo si toos ah u kordhisay xawaaraha iyo tayada internetka dalka oo dhan. Fiber optigu waa xiriir xogeed aad u degdeg badan oo awood u leh inuu hal mar qaado malaayiin xog ah, taa oo Soomaaliya ka dhigtay meel laga helo internet tayo leh magaalooyinka iyo gobollada dalka. Laakiin taas kaliya ma ahayn. Soomaaliya sidoo kale waxay sanadkii ugu dambeeyey heshay adeegga Starlink ee shirkadda SpaceX oo uu leeyahay maalqabeenka gaalka ah Elon Musk. Starlink waa adeeg internet oo laga helo dayax-gacmeedyo hawada sare ku wareegaya, wuxuuna faa'iido weyn u leeyahay dhulka miyiga ah iyo meelaha aan lahayn kaabayaasha fiber optiga. Waxaa maanta suurtagal ah in xitaa tuulo ku taalla gees miyi ah oo Soomaaliya ka tirsan ay heshay internet xawaaro sare leh, taasoo ka dhigan in dalka oo dhan uu si siman uga faa'iideysan karo horumarka tiknoolajiyadda. Isku darka fiber optiga iyo Starlinkigu waxa uu Soomaaliya ka dhigay dal leh isku xirnaan digital oo ballaadhan, taasoo dhalinyarada iyo bulshada guud ahaan u furaysa fursad aan xad lahayn, waxbarasho online ah, caafimaad fogaan arag ah, ganacsi caalami ah iyo hal-abuur tiknoolajiyadeed oo la jaanqaadi kara caalamka. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay fursad u haystaan inay bartaan xirfado casri ah sida barnaamij samaynta, naqshadaynta suuqgeynta ee dijitaalka ah, hal-abuurka warbaahinta bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook-ga. Sidoo kale waxay si toos ah uga qayb qaadan karaan shaqooyinka caalamiga ah ee freelancing-ka iyagoo weli ku sugan guryahooda. Taasi waxay ka dhigan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed aysan u baahnayn inay sugaan shaqo dawladeed oo adag, balse ay iyagu abuuran karayaan shaqooyin, ganacsi iyo sumcad caalami ah oo ka dhalata garaadkooda iyo hal-abuurkooda. Waa hubaal in internetkan xawaarihiisu sarreeyo uu noqday hubkii ugu weynaa ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku gaari lahaayeen horumar dhaqaale, aqoon iyo bulsho, kuna kobcin karaan mustaqbalkooda iyaga oo aan dalka ka bixin. Waa qalab ay ku ugaadhan karayaan noloshooda. Waxaan ahay Muxiidiin Cabdi, juqraafi ayaad igala socotaan. Bogogga haddaad ku cusub tahay, subscribe saar YouTube-ka, Facebook-gana follow garee hadduu kugu cusub yahay, like iyo share-na isugu dar. Assalaamu calaykum.